hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadka uu soo ritay xanuunka safmarka ah ee coronavirus ee adduunka oo dhan. Warbixintani ayaa waxaa lagu sheegay in dad gaaraya 1,900,000 oo ruux oo ku nool meelo kala duwan oo daafaha dunida oo hadda hayo xanuunkani dilaaga ah ee coronavirus. WHO ayaa waxay sheegtay in bishan Abriil ay dad badan xanuunkani qaadeen dalal badanna uu gaaray isla markaasina ay hay'addu walaaca ugu badan ka qabto in cudurkani uu wali si xawli ah ku sii faafayo. tirada dadka u geeriyooday ayaa gaartay 119,500 adduunka oo dhan waxaana ka bogsaday dad gaaraya 450,000 oo ruux. dadka ugu badan ayaa waxay ku geeriyoodeen dalka Mareykanka waxaana xanuunkani u geeriyooday in ka badan 23,000 oo ruux. magaalooyinka dalalka ugu badan ee u geeriyooday xanuunkani coronavirus ayaa waxa ay kala yihiin New York oo Mareykanka ku taala waxaana ku geeriyooday 10,000 oo qof sida ka muuqata tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay.